bismillaahi raxmaani raxiim. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan Romaal Media. qodobada ugu door karoon ee warka duhurnimo aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo khudbada ka jeediyay shirka wadatashiga ee maanta ka furmay magaalada Garowe ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland oo aan weli xal laga gaarin. madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay xooga saartay in xal laga gaaro khilaafkaasi iyo in xal loo helo caqabadaha goonida u ah Puntland ha yeeshee qorshahaasi uu fashilmay ayna mas'uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan xooga saarnay in xal laga gaaro khilaafaadka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland. waxaan ka hadalnay arrimaha caqabadaha nagu ah balse wax walba waxa ay ka socon waayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo hareer maray qorshihii lagu dhisay dowladda iskuna dayay inay awoodda dhan qaataan, ayuu yiri Siciid Cabdullaahi Deni. sidoo kale isaga oo kasii hadlayay xiriirkaasi xumaanaya ee weli u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland ayuu sheegay in Puntland ay dib u eegayso xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana aysan ogolaanin in dowladdu ka leexato mabaadi'dii lagu dhisay. war ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay inay dalka soo galaan muwaadiniinta iyo ajaaniibta ka imaanaya 4 dal oo uu si weyn u saameeyay cudurka coronavirus. dalalka laga mamnuucay ayaa waxay kala yihiin Shiinaha, Iiraan, Koonfur Kooriya iyo Talyaaniga. waxayna dowladdu sheegtay inaysan Soomaaliya imaan karin dadka ka yimaada dalalkaasi xitaa haddii ay yihiin Soomaali. shaqaalaha garoonka iyo duuliyaasha diyaaradaha ayaa waxaa lagu amray inay la soo xiriiraan hay-adda duulista hawada haddii ay rakaab ka uga shakiyaan inay qabaan cudurka coronavirus. warkan ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadmaya xilli dalalkaasi uu si weyn u saameeyay cudurka coronavirus. sidoo kalena dowladaha Kenya iyo Itoobiya oo daris la ah Soomaaliya dad qaba cudurkaasi coronavirus ayaa laga helay. daawadayaal iminkana akhbaaraadkii dibadda. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa laga waayay cudurka coronavirus kadib markii laga baaray cudurkaasi sidoo uu sheegay dhakhtarkiisa ka howlgala madaxtooyada Mareykanka. galab waxaa soo gaaray war xaqiijinaya in cudurkaasi laga waayay. madaxweynaha ayuu xalay warbixin qoraal ah ku yiri Sean Golnay. madaxweyne Trump ayaa cudurkaasi laga baaray kadib markii xubno ka tirsan wufuud ka socotay dalka Brazil oo dhamaadkii usbuucii hore uu Florida kula kulmay lagana helay cudurkaasi. warka duhurnimo Romaal Media waa naga intaas. warkan warka xiga inta aynu ku kulmi doono waanigu Axmed Cabdullaahi Jaamac oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo farsamadii saaxiibkay Maxamed Cabdixan.